oo madaxweyne ku-xigeenka uu sii dhibtay ninkii baa haddana dhahay dastuurkii Puntland baa siinay inaan madaxweyne noqdo ninkii baa toddobaad ka sii boolinayo kadibna de isagiin baa soo fadhiistay marka ninkaas waa nin iska dhib badan oo meeshu maago waa nin iska dhib badan marka waa doorashada furintii deegaanka ka dhacdo kalama السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجك حق ورن oo mudaha kad ku jiray safaro aan ku kala maqnayn aniga iyo garabkayga Muxyidiin Xarago oo ku kala maqnayn safaro sababay inaanu idin soo gudbin weyno xogihii rasmiga ahaa ee aanu idin soo tabin jiray sida joogsada ama maalinlaha ah maanta ayaanu dibadaha uga laba qaadnay waxaanuna idin ka soo tabinaynaa magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida qodobkaana maanta idin dul istaagayna ama ku daafurayna waxa uu yahay doorasho dif iyo naadir ama aan la filaynin oo ka dhacday maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland taasoo qof iyo cod ah tan iyo burburkii kadib ku dhawaad 30 sano tan iyo burburkii kadib waa meesha ugu horeysay ee dhulka ama dawladda Soomaaliyeed ay ka taliso kolkii laga reebo maamul goboleedka waqooyi ee Somaliland ay ka dhacday doorasho qof iyo cod ah ishardan adag baa ka dhacay waxa la sheegay in dawladda federaalkii ayna raali ka ahayn ama ay dureysay qaabka uu wax u wado madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Dani kama aysan dhicin caasimadda dawlad goboleedkaasi ee Garowe sababaha waxa ay noo raacin doona Muxyidiin Xarago waxay ka dhacday soddon degmo waxa isku haya musharaxiinta ka tartamayay ama u tartamayay axsaabta kala duwan ee siyaasadeed ee Puntland kuwaasi oo la sheegay inaynan isku waafaqsanayn doorashadani qaabka ay u dhacayso doorashadani waa doorashadii golayaasha deegaanka Muxyidiin soo dhaw Cabdiraxmaan waa dhaw hay saaxiib oo adigana soo dhaweynaya safar dheer oo gashay kadib daawadayaasheena dabcan aynu ku kala hakanay maadaama aan suuda jira barnaamijyada soo dhaweynayna iyagana waxaan leenahay comeback miya la dhihi jiray mar labaad soo dhawaada comeback anagii halkii ka socdo dabcan hawlo jira awgood baanu intaadi kaga maqnay saaxiibadan waan ka raali galinayna muddooyinkii barnaamijyadana hakadka galeen dib ayaanu dabcan ka abaqaalaynaa ama dib ayaynu ka soo Cabdiraxmaan oo saaka Puntland guud ahaan waxa u dareertay doorasho aan xilliga la filayn inay ka dhacdo doorashadaas oo ah in doorasho cod iyo qof ah laga qabto deegaanada Puntland dabcan waxaan ogsoonahay doorashadan codka iyo qofta taariikh badan bay sameysay intii la rabay in Soomaaliya ka dhacdo hadii aynu Soomaaliya qof iyo cod kama suurtagelayso oo dhul hadee intiisa badan waxa laga yaabaa inay dhulka intii dawladdu xukunto iyo inta kale ama isku egyiin ama mararka qaar dawladdu inta xukunta ay yartahay Puntland qof iyo cod waxay ku suurtagelisay ma la dhihi karaa dhulkay wada xukuntaa horta Cabdiraxmaan waa run doorasho marka la yiraahdo cod iyo qof ah waxyaabaha ugu weyn ee la fiirinayo ama ay dunidu fiirinayso waa in macnaha dadka mas'uuliyadooda amni la qaadi karo oo hadii goobahan lagu codeynayo dadku isugu imanayaan amnigeeda dawladdu ayna tabar u haynin ay ku sugso dadka dabcan macnaha cadowgi la isugu soo ururinayo meelaha ay maqaraxyo ka geystaan ama macnaha ay fulalka ay ka gudbiyaan macnaha laguma sibood gareyn karo laakiin marka amniga laga adkaado bay noqonaysaa in doorashadan cod iyo qofka la qabto Puntland dabcan waxaad moodaa amaba u muuqataa mar hadii ay ku guuleysteen hayaan dheer oo dawladda Soomaaliya ay lafteedu ku taamayso inay maalin loo dareero madaxay dadku gacantooda ku soo doortaan oo dabcan dawladda federaalka iyo guud ahaanba maamul magaalooyinka maamul goboleedyada raahda ka dhacda doorashadan madaxweynaha hadda talada ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan la soconay inuu waqtiyadii uu xilka qabtay inuu waxyaabihii uu ballan qaaday oo ahaa in doorasho cod iyo qof ah dalka uu ka dhacay waxaan la soconay kale khayr inuu ku waayay kadib muddadii 4 sano markii ay liqeen maamulkii madaxdii xilka ka degay in la isku eedeeyay gudahooda la dheer ra'iisul wasaaraha daacad ka ahayn iyo madaxweynaha daacad ka ahayn kadibna ra'iisul wasaaraha tagasho qof iyo cod doorasho ay la suurageliyay inta adkaatay in ra'iisul wasaaraha xilka laga qaaday khayraha halka ay hadal ahaa 7 minute ama 7 daqiiqo kalsoonida laga laabtay taasna ay sababahay doorashadana la diidan yahay codkiyo qofka in la qabto iyo lama diidana siyaabo kala jira marka hadii inta Puntland u soo noqono Puntland saaka dabcan doorashadaas looga dareeray waa doorashada
deegaanada golayaasha deegaanka ka waa xildhibaanada iyo golayaasha deegaanka oo yaa la soo dooranaya doorashada kale madaxtinimadana waa ay ka dambaysaa waa sanadka dambe ee 2024 23 dabcan ku jira 24 muddo aad u sanada ama bilooyin un baa ka harsan doorashada madaxtinimada maamulka Puntland waxa ka jira la leeyahay 7 xisbi 7 xisbi laakiin dastuurku wuxuu ogol yahay la leeyahay waa 3 xisbi oo kaliya waa kan talada haya ka tirsan yahay Dani iyo Mideeye iyo adigu 3 xisbi dabcan dastuurku ogol yahay la leeyahay waana 3 xisbi la rajeynayay 3 xisbi sharci ah oo yani shuruudaha xisbinimo buuxiyay mise dastuurkaaba 3 unogo may dastuurku uu ogol yahay cid kastoo soo buuxisay laakiin dastuurku 3 xisbi baa imika macnaha shuruudaha buuxiyay oo yani 7 xisbi baa ka jira 7 xisbi ka jira waxay ka dhigan tahay afar kale oo kamid ah shuruudaha dastuuriga ma inay buuxinin bay ka dhigan tahay marka sida daraadii doorashada iyagu uma soo tartamayaan teeramkan laakiin 3 iyaga kamid ah shuruudaha wada buuxiyay oo tartami kara laakiin cid kastoo soo buuxinaysa ama macnaha waxaan walaal dastuurku ogol yahay xisbinimo macnaha shuruudihiisa buuxinaysa doorashadani saaka jodhay horeba deegaanada waxa lagu waabareystay in muwaadiniintu ay codkooda gudbistaan dabcan oo ay iyagu marka cid ay rabaan ay iyagu marka dooranayaan ilaa 30 degmo oo kamid ah deegaanada Puntland dabcan ay ka taliso ba doorashadani ay ka dhacday laakiin arinta la yaab kale dadku aad u faaqadayaan ayaa in caasimadii Garowe Puntland ayna ka dhacin doorashadani sabab jira awgeed waxaan la soconay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxda federaalku in ay khilaaf uu ka dhaxeeyay Dani waxa uu kamid ah musharaxiintii loolanka adag galay dawladda federaalka musharaxiintii u taagnaa xilka madaxweynenimo waliba raggii halganka adag la galay farmaajo oo la dhaqaajin kara leeyahay يعني مبادئ وين فرماجة كده بس إنك يلوه ما مركب ما دام 4.5 هذه اللي في رياض كلنا عاي حوجيت قابني جيت دير بوفوله إنه سجى بدله إنه سجى ماشي لا دافيو إحنا ندو فرماجة كوكر عسنين يدني وكوكر عسنين ولا بدل معمول سجى مركب لو حيانا وسكوير دنك يا حيان و 4.5 كسولنا عاي هذا waxa nimankii sida weyn uga soo horjeesaday ilaa markii dibadani isu qaawiyaga oo dhaxaba ana geliyo sax marka doolanka adag Dani waa nin mayal adag baan filayaa oo isagoo madaxweynaha uu intuu ka tagay cilmiga waxa inta cilmigiisa ka galiy iyo federaalkii tagay baarlamaankiina sayno fadhiisan oo kala fasaxay waxa uu ku kala dhaxtuuray markuu soo guul dareystana nin crash la dhaho oo isagoo deegaanadan ka soo jeeda malaha SSC oo xaqan ah oo madaxweyne ku-xigeenka uu si dhibtay ninkii baa hadana dhahay dastuurkii Puntland baa siinay inaan madaxweyne noqdo ninkii baa 7 iska sii boolinayo kadibna isagiin baa soo fadhiistay marka ninkaas waa nin iska dhib badan oo meesha maago Dani waa nin iska dhib badan marka madaxda federaalku dabcan inta wixii ka dambeeyay Xasan Sheekh oo la dhaho isku tiim baahan oo maadaama ay ka soo wada horjeedeen farmaajona loo arkay in siyaasadiisu aad kayd waqtiga isku tiim baahan wixii inta ka dambeeyay doorashada waxay noqotay in kursiga siyaasiga lagu heshiin waayo Dani malaha saamigu rabay in dawladda federaalka uu ka helo in hadii ay noqoto ra'iisul wasaaraha in maamulkiisa iyo xaqaaga uu ka soo baxay hadii ay noqoto adoo in aragtida siyaasiga la isku diido kadib khilaafka soo kala dhaxgalay wuxuu sababay in Xasan Sheekh iyo Dani ay kala fogaadaan ilaa ra'iisul wasaaraha laftiisa ay kala fogaadaan maalmihii ugu dambeeyay waxaan la soconay in hadalla xanaaf hawada la isu marinayo Dani iyo madaxda federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba waliba ilaa 2 jimca ayuu ka hadlay masaajid Xasan Sheekh oo dhahay Dani aad u duray maamulka xamse laftiisu ka hadlay kana uu jawaabay marka iyadoon la isku faraxsanayn markaas dagaalkoodu wuu soo shaxbaxay laakiin maxaa sababay leh bilow waxaa sababay doorashadan dadku way kala aragti duwan yihiin inta badanna dadka shacabka waa la siyaasadeen xaqiiqda laakiin jirta iyagoon ba og siyaasiyiintu nin walba dantiisa ayuu raacdaa dantiisa buna meeshu danka arkoon buu dadka ku kiciyaa oo dhahaa maartay Dani imisu wuxuu leeyahay doorashadan cod iyo qofka bay dawladda federaalku diidan tahay
dowladda federaalkuna dabcan ayaduna de waxyaabo kale kolley dani ma siyaasadda iyo dagaalka kala dhaxeeya biyo hoostood baa la iska adu iyaga dagaal ka dhaxeeya laakiin muhiimadda ugu weyn dani waad moodaa inuu imika guushu ay raacayso maadaama doorashada suurageli dowladda federaalkuna doorashadan ku qanacsanayn midda kale ku weydiinay waxay tahay maadaama barnaamijkeena hadda gabagaba yahay Garowe maxaa sababay inay ka dhici weydo doorashada maadaama madaxtooyadii Garowe waxaa sababay la leeyahay dowladda federaalka iyo dani maadaama is hayaan dowladda federaalku waxay isticmaashay mucaaradkii dani ka soo horjeeday Puntland bay support garaysay malaayiin lacagna way ku bixisay la leeyahay oo si doorashadan loogu joojiyo lacag aad u badan bay ku fangaraysay lacagta waxa qayb ka ahayd in mucaaradka la siiyo mucaaradkii marka iyagana waxay dhigeen in ay doorashada ka soo horjeedsadaan oo dhahan doorashadan dani baa dana gaar kale ama aftuubanay marka maadaama ay tahay Garowe magaalo madaxdii mucaaradkii iyo qoladan kale maxaafidka ama dawladdu ay ku qaybsan yihiin doorashada dowladda federaalkuna ay mucaaradka support garaynayso doorashada xilligan in la qabtana ay kaga soo horjeeday waa sabaha ugu waaweyn ee laga cabsaday in haddii halka cod iyo qof saaka dadka u dareeraan in isku dhacayo waxaan la soconaa mucaaradka laftooda ciidamay wataan mana dhaweytay qolo mucaaradka ah oo doorashada in la qabto diidana oo ciidamo mucaaradka ka amar qaata baa isku dhacayo ay ciidamo kale xaggan kale oo xagga dawladda baa isku dhacayo ilaa markii dambe taliye ku-xigeenkii hore garoonka diyaaradaha la dhahay meesha waa lagu dilay marka labada qoloba ciidan bay iska wadataa marka qolo waliba ciidankeeda soo meesha rishbad uga dhicin oo dadkan codeynayaan dhibaato soo gaadhay bad moodaa inuu dani laftiisa halka uu ka taxadaro meelaha kale la geeyay doorashada waxa jira qoliyo mucaarada oo lagu naanayso Aranjan ma garanay inuu dani u bixiyay Aranjan waxa la leeyahay waa niman awood leh sirdoonka Puntland bay xukumaan ciidamada qaar bay xukumaan nin waxa jira isaguna in diyaano la dhaho isna ciidamo xukuma يعني awoodahan iswada garab socda maxay yani dagaalka la ascaano ina diyaana gaar si madax bannaan oo Puntland ahayn buu uga qayb qaataa ina Faroole iyo Aranjanka la sheegayo waxa la yiri waxa abti u ah Muuse Biixi sidoo kale waxa ay ka soo baxeen difaaci ay ku jireen horta Goojacade marka waxyaabaha noocaas iyo awoodahan iswada khilaafsan iswada garab socda si maxay Cabdiraxmaan horta waa runo Puntland markaad yar fiirfiirso waa meel aad ku yar wareeri macnaha waxaan saa u leeyahay imika Soomaaliland oo kale mucaarad baa ka jira xisbiyo mucaarad ka jira waliba nin afar dheer baa ka jira Faysal Al-Waraabiyo ana madoon mawduuceenu ma laakiin macnaha mucaarad baa ka jira laakiin mucaaradkaas ciidan ma haystaan ciidanku waa hal meel oo Puntland nin siyaasi oo waxaad arkay ciidan wata hadda ciidanka BSF la dhaho ugu awoodda badan Puntland meelaha marka la fiiriyo Asad Diyaana wata oo musharax madaxweynaha waa musharax madaxweyne hada dawladda kama barqaataan waa ciidamo si gaar ah u tababar Mareykan baa tababaray kharashkooda Mareykan iyo meelaha kale malaha laga bixiyo waa ciidamo marka ninka musharaxa mucaaradka uu wato kuna dagaalgali karo kuna musharaxiin macnaha waa nin saanadii ciidan gooni ah wato isagu laftiisu reer Faroolena iyaga laftoodu waa qolyaha dani ka soo horjeeda dagaalkan asxaanooda malaha beeshooda qayb ka ahaayeen waxa la dhaawar beeshan hadiyo nimankan saaxiibaan nahay oo abtibiyo waxaan isku nahay ka soo bax way ka saareen bay la leeyahay marka nimankaasina waa niman gooni ah nina diyaanana waa gooni marka nimankaas qolo waliba ciidan iyo waxba iska wadata waana sababaha uu dani u joojiyay laakiin dani hadaynu yar ku soo laabano dani waxaad moodaa inuu guul istiraatiiji uu gaaray mar hadduu doorashadii uu gaaray uu inta badan ku taamay uu maanta qabtay way Puntland ka dhacday maanta waana taariikh ay samaysay maamulka Puntland oo 25 sano jirsanaya 98 baa la aasaasay malanaya markii horena hooyada federaalka nahabeel maanta wax kale oo ku sii xoojiyaan taariikhdooda ku sii naaloodaan waaye badan bay gaareen mar haddii doorashadii Soomaaliya laga filayay muddada dheer la filayay beesha caalamka lafteeda oo taageeraysa ay ku cadaadinaysa in dadka shacabka aragtidooda oo laga baxo nidaamkan lacag baan ku siinay codkaysiga xildhibaanada maadaama tii laga baxo waxaad moodaa in guulaad weyn halka ka soo hooyay iskhilaafkii siyaasadeed ee madaxda federaalka iyo Puntland beesha caalamka waxay taageertay dani oo waana sababaha doorashada qabsatay doorashada qof iyo codkii madax furan tahay misawati deegaankeena ka dhacdo waa doorashada furantii deegaankeena ka dhacdo kale ma okay aad iyo aad baad mahadsantahay kaasina waxa William Idin Xarago oo igala qayb qaadanay barnaamijkii xog waran oo aanu maanta idinku falaqeynay doorashada qof iyo codka ah
ee ka dhacday maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Tan iyo tan barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.